السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتان كساحبنا برتيدي يوتيوبka soo dhawaada sidee tihiin xaaladiina ka warrama soo ma fiicnidin xaalada soo dhagdhag ma aha alxamdulilah ilaha noo nimceeye nimcad rabbi aan ku jirnaa adinkana sidaas oo kale idin rajeynaa insha allahu tacaala bilis janaalka hani jaafuli haddii aad ku cusubta waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe inoo saartid like aad dhahdid sharena aad dhahdid commentina aad ka bixisid insha allahu tacaala liketa iyo shareta iyo waxaa waaye mataqaanaa dhiirigelina ka helayna ma fahanti like marka asaartana waxay noo fududeynaysaa ama noo sahlaysaa in dad badan uu gaaro oo ay daawadaan intaas marka anaga dhiirigelina noo tahay maanta hani maxay idiin wadaa hani waxay idiin wadaa maanta burkaas aadka u quruxda badan loo jileeca waxaan ku dhahaa bur ma dhihi kara rooti yaa la dhihi karaa kan ma fahanteen gudihiisa suuf suuf maasha allah qeyb sokoraan ku sameeyey oo sokoraan dusha ka mariyey burkaneeti qeybna sokor la-aanaa ka dhigay calaashaan waalida iyo joogmahan oo aan sokor loo rabin marka qeybtaas sokor la-aan saasaa ugu dhaafay qeybta kaleetona sokor saasaa ugu yeelay marka insha allah waxyaabihii aan ka sameeyey iyo sidii aan u sameeyey bal waxaan rabaa in ay la daawatiin haddii allaha awoodol uu raali ka noqdo aan isla fiirino wax walba ila cabirtiin ma fahanteen aad tijaabisiin feedback ay soo siisiin maxay aheeday ama natiijo ay soo siisiin natiijada sida udan kugu soo baxay ma fahanteen marka bal waa kaasaahe burkan waa ka heli doontiin wallahi haddaad tijaabisiin soo dhadhawaada marka aan isla qasno burkeena weelkan baaqulgaana soo qaata caaga waxaan kusoo shubtay koob caani ah koob haafkiisna gadaala uga baahan doonaa insha allah gadaala uga dareynaa waxaa kusoo darsada xabad oo kun caadi ah hal xabo kusoo darsada burkaan nafaqadiisa maasha allah tabaaraka allah casho dhan uu naqi karaa ma fahantay haddii shaah cadeys lagu cabo wax kaloo looga baahan yahay male koob barkiisa waxaan kusoo shubay sokor waxaan kusoo shubay 2 qaando oo leebite ama fixise ama qameerise ma fahanteen waxaan kusoo shubay koob 4 loo qeybiyo qeyb kamid oo maxaan la lahaayay saliid cadee waxaan kusoo darsay sidoo kale heel cusbo yar oo fariisuula kusoo darsaday marka waxaan sameynaynaa intaan isdhex qaadsiinaynaa isku garaacaynaa cabaar ukunti iyo alaabtan waxaa la rabaa inay maasha allah tabaaraka allah isku tirmaan ama isku milmaan ma fahanteen marka waa kaasaahe la socdo insha allah qaandada kale waa iska bixiyay tanaa marka isticmaalaya waxaa rabaa burka intuu qoyaanka leeyahay dhan ina qaandada isku isticmaalo 2 bakeeri hadda kusoo shubay kii saddexaad waa kanaa insha allah kii afraad waa kanaa kii shanaadna waa kanaa marka 5 bakeeri oo burka isticmaal doona insha allah bakeerigaas qof walba fahmi karo qof walbana gurigiisa uu yaala uu heli karaa ma fahanteen waxaa kusoo daray adi 4 qaando camal waaweyn oo maxaa la dhahayaa waraangada burarka waxay siisaa suuf gudaha ka dhigtaa ma fahanteen inuu yacni isku dhago oo cajiin noqdo way ka ilaalisaa waxay noqonaa marka suuf kala baxbaxsano maasha allah tabaaraka allah u ka dhigaya ma fahanteen marka intaan isdhex qaadsiinaynaa marka caanaheeni kala u baahanay aan kusoo darsanaynaa bakeeri haafkiisa caano kaleetoodan kusoo darsanay meeshaas waxaan ku qasana burkeena 5 bakeeri ahaa bakeeri iyo bar oo caano marka waa kaasa intaana marka isdhex qaadsiinaynaa meela soo dhigaya waxaan dhigayaa insha allahu tacaala muddo 20 daqiiqo camal wuu soo kacayaa kabacdi marka waxaan sameynaynaa waa ka howlgalaynaa ma fahanteen waa kasaas u jilicsan jileeca asigana maasha allah tabaaraka allah aad u jilicsan ma rabo burkinu biyana ka noqdo mana rabo inuu adeeg ka noqdo waa kana marka xajmigiisu wuu soo laalaabmay maasha allah saasa ujeediino noqday hadda marka waxaan sameynaynaa bacdaas yar oo aan ku fidin rabo aan maxay aheeday dush kasoo saartay waa soo jarjara marka qeyb aan usoo jir 15 xabo aan kasoo dhigay 5 glass gala ya 5 bakeeri bakeerigiiba yani wuxuu noqday adi dhowr xabo ma fahanteen marka maasha allah waa kaasa waa fidinaa qeyb aan tusaa kulli mid tusi karmahan oo 15 xabo aan tusina hadii aan dhaho waqtiga idinku dhamaana marka burka 2 style ka dhigi rabaa qeybna warwareegan ka dhigi rabaa qeybna dhuudhuub ka dhigi rabaa tada camal meel dhahay marka waa kaasa sida rootiga ma aragta baan oolyaha aan u soo laalaabaya insha allah tacaala ila socdo marka waa kaas geesaha isee keenaya haddana marka waa fidinayna geesaha markuu isaga dhago meesha dhab isaga siinaysaa li'annahu inuu kaa kala fuqo mal rabo waxsaan loogu laabaayana waxaa la rabaa gudaha ma aragto inuu ka kala baxbaxo
oo bur gudaha asiga dhan maasha allah isaga kala baxbaxsan inuu ahaada loo laalaabayaa. Marka waa kaasaa hee la socda xaaladda. Dhererka aan u baahanahay marka intaan waaye dhererka aan u baahanahay. Kabacdi waxaa sameynaa marka waa laabeynaa insha allah. Dhag meeshaasaa kasoo gelinay meeshaasaa dhiganay kaas kana inta kasoo gelinay haddana dhag xaggaa kasoo bixinay waa isu keensanaysaa. Wax ka fududbo ma lahan burkaan ay tijaabiye insha allah quruxna wuu yahay maatina wuu kaa kicinayaa. ilmahana casho uga dhigan kartaa nafaqo waaye maxaa la teed kale aad u waaweyn yahayba maasha allah tabaaraka allah. Qofka hal xabo ka cuno oo koob shaah cadays ku cabo bikafi casho ma u baahnaanayo ma fahanteen. Marka alxamdulillah ilaah mahad iska leh noo suurta geliyay inaan wax sameyno wax maxay ahaydey cashirka maanta meesha idinku siiyo awoodeeda anaga malihiin alxamdulillah rabbil caalamiin mar walba ilaah mahad u sugnaatay. Marka waa kaasaa kii kalaasaan usoo laalaabay isla sidii soo sameeyay. waxaan sameynaa marka isla sidii haddana u sameynaa insha allah ila socdo. waxaan rabaa inaad si fiican usha ugu bogataan ma fahanteen. بليز marka waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe jalaalka noo saartid like aad dhahdid share aad dhahdid commentina aad ka bixisid insha allah tacaala. like dhiirigelinay noo tahay subscribe ka dhiirigelinay noo tahay waxaan la dhahay like sidoo kale waxay noo suurta gelinaysaa inay dad badan u gaaro maxay video dad badan ay daawadaan. Marka qaybtii labaadna isla sidii usoo maxay fidiyay sidii haddana usoo dhuubay oo dheerkaas aan ugu soo dhigay kabacdi waa saana isugu qabanaa ma fahanteen. akaasaa markana si fiican u arkaysiinaa rajayna insha allah qaybta u dambeysa kaamirada xoogaa banaanka iga baxda laakiin kan kaleetooda aan ku tusi doonaa insha allah tacaala. haddana waaba kaas waa arkaysiin marka waa kana sidii asigana soo yeelaa insha allah tacaala. because waxaa idinkaga darjaraya waxay tahay haddaa dhaho maanta dhan waa idin wixii dhan aa sameeyay dhan aan tusina yacni adinkana muhiim idin aha oo hal xabo ama laba xabo haddii idin tusiyo waa idinka badan tahay. haddii maxaa la dhahaye aan tusiyo hal xabo iyo laba xabo idinka badan oo aad ku fahmi kartaan waqtigiinana oo idinku dhaqaaleysma ma fahanteen. marka waa kaasaa labadan xabo intaan idinka tusinay insha allah tacaala. marka saas iskula soconaynaa. markaas gacantaada kusii wada kusoo wixeyso marka waxaa sameeyay waqti inuu qaataa la rabaa. saxankaas soo saara saxanka foornada bacdaas hoos dhigay because of nooga dhigaa maahano bura u dhigaa haddaan dhahane burka waxoogaa dhoofta saliidu ka haleena saliideeda nadiif ido inay ka dhamaystaa rabaa oo dhoofta cuntooyin kale u isticmaalo oo saliida marka wax bur la ku isticmaal saliida waxay kaana qanay ma taqaanaa madoobaad camal ay kaana qanay. marka insha allah saliida ilaalinay bacdaas haysta bacdaas waxaa waaye waraq zubda la dhahaa ama baking paper supermarketyada laga helaa ma fahantaan. hadda midnima kasoo gada waa kasoo gadan kartaa. marka bacdaas yaa u dhigay saliida. marka muhiimada burkaaneed waxaa waa saliida haddii ay kaa kulushahay waxba yacni burka maanta dhan kusoo daalaysa ma kuu taraa. saliida waxaa la rabaa dab daciif yacni kuukarka markaa qofka wax ku karnayo meesha u dambeysa inaa geyso kuukarka oo kuugu dambeyso liannahu burka waa cajiin soo maaha. cajiinka marka wax marka ay yihiin haddii intaa qabsatay ka hor intaa dalaq kusiisib saliidiyo kul kor oo dhac kaaga noqdo gudihiina oo cajiin ku yaalo soo foolxumo ma aha yaa cuni kara. marka dadka ma siinaysa niyadda inay cajiin cunaan laakiin saliidaasaa ku ridee dabka meesha u dambeysa kuu joogo ugu gaaban oo kuu joogo aa ku ridaysaa tartiibta. maanta dhan waxaa sameynaya marka waa gadinaya maarba dhinaca u gadinaya ma fahantay yacni ma dhehaysid saliidda intaa ku rido way qabowdahay aan uga tagaa ma dhehaysid. waxaa la rabaa inay maxayd aa ku gadgadiso marka sokorteena ma marsanaynaa oo kululyaha gacanta ma ku awoodi inaa ku qabto saliid waxaa marmarnaa marka sokorti qayb labaad ku suuratay muddo ku jiro ma fahantay ugu yaraan 10 daqiiqo oo ku jiraya iyo ka badan saddexdaas xabo laanahu dabka wuxuu yahay dab aad daciif waana ka dareemaysaa burku soo dahab u yahay ma fahantay in dabka uu daciif yahay. marka si fiican isaga fiiriyo meeshaan muhiim jiddan waay
inaad saliidda daciif ka dhigto bilistaas aad ku talina si gudaha burka si sharaaf leh uga soo maxay ahaday bislaado oo burkiyo rootiga kaale iska arag oo idinkugu soo baxo marka waxaan rajeynaa inaad tijaabi doontaan taladeedana aad qaadan doontaan saliidda aad kula dadaalaya aad kula talinayo wax walba oo maaragtay saliid lagu dubo waxay u baahan yihiin dab daciif ilaa sambuuska ma ahane sambuuska tada dab daciif ku dubad waxa ka galay saliidda gudaheeda soo maaha markii waa kaas akhiyaare markii aan dhameeyno oo aan maxay qurxinaysaa soo ku baxay qaybtan sokor malaha sokor la'aantan waa lagu cuni karaa teeda kale waxaan ku cuni kartaa condensed milk ama caano macaanka oo kale tood waa ku darsan kartaa inta sokortaas aad dusha ka marinayso dhan iska dhaaftid ma fahanteen marka condensed milkigaas aad marsan kartaa waxaa sidoo kale aad ku darsan kartaa sokorta burka luqmatul qaadiga lagu daro maaragtay sokortii biyaha la isku karkariyo waa ku isticmaali kartaa ay macmacaan aad dusha uga darsan kartaa ma fahanteen marka waa kaas burkaneeti qaybta sokor la'aan ka dhigta shaahle lagu cabaaya xataa waxa u samaysan kartaa suqaar yar u samaysan kartaa sokorta marka hore aad ku dareysid xoogaa iska daciifina suqaar ku darsanay ma sha Allah tabaaraka Allah kugu soo baxay adiga waa rooti ma sha Allah waan u jeediyay kalarkiisa ma iga gubanin ma iga fool xumaanin ma sha Allah tabaaraka Allah inuu ku soo baxo ma hano marka waxaad ii rajeynaa khayr iyo barwaaqo insha Allah inaad tijaabin doontaan adyaalaha awooda loo raali ka noqdo bye bye assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh